dhammaan waxaan saaka halkan kala hadlayaa bulshada reer Somaliland waxaan runtii dhammaantood marka hore uga mahadnaqaynaa sidii wanaagsaneyd aynu hawlihii diiwaangelinta iyo shaqadaynu soo qabanay usoo dhamaysanay mar labaadka waxaynu wada ognahay dhammaanteen ka wada warqabnaa in insha Allah bismillaahi kariim berrito 7 subaxnimo ay inoo furmi doonaan goobihii codbixinta ee doorashadu inooga qabsoomaysay waxaynu ilaahay ka rajaynaynaa iyo shacab weynaha Somaliland in sidii aynu diiwaangelintii iyo kaadh bixintii ugu soo dhamaysanay nabadgelyada iyo wanaagga ay tanna inoogu dhamaato waxaan halkan baan uga dirayaa guud ahaan shacabka waayeelka waxgaradka salaadiinta cuqaasha culimada haweenka dhalinyarada iyo magac kasta oo ay bulshadu u qaybsanto ururada bulshada dhammaantood waxaan leeyahay maalinta berriya dhammaan waxaan idinka rajaynaynaa oo idinka codsanaynaa haddaanu nahay komishanka doorashooyinka qaranka in dhammaanteen aynu commission wada noqono inaynu dhammaanteen ciidan noqono inaynu dhammaanteen hantiilayaal dalka iyo ciidda le noqono inaynu dhammaanteen xil isa saaro miisaan iyo mug leh oo aynu nabadgelyadeena iyo habsami u socodka doorashada ku ilaashano dhammaantiin waxaan idinka rajaynaynaa inaynu mustaqbalkeena iyo qarannimadeena iyo dalkeena mid walba u turano xil la iska wada saaro waxaan kale u mahadnaqayaa xusbiyada qaranka iyagana waxaanu leenahay doorasho wanaagsan oo inoo dhacda Somaliland bay magac u tahay xusbiyada ayay magac u tahay jiritaankeena iyo qarannimadeena iyo itiraafkeena magac u tahay dhammaan waa ogtihiin waxaad tihiin madaxdii dalka waxaad tihiin siyaasiyiintii mustaqbalka waxaad tihiin hogaamiyeyaashii shacabka iyo bulshada sidaa darteed waxaa ogtihiin oo aad garanaysaan oo ku baraarugsantiin baynu xusuusinaynaa waxaanu idinka codsanaynaa aada iyo aadna idinkaga mahadnaqaynaa shaqadaynu soo wada qabanay waxaan idinka codsanaynaa in aad dhammaan ku wacyigelisaan taageerayaashiina u sheegtaan goobjoogayaashiina u sheegtaan in doorashadaas haddii alla ka dhigo ay ilaahay way inooga dhigayaa si wanaagsan idinku dhacdo idinkuna dhinaciina runtii dee isdhinac taagtaan oo waa arrintaa qaran ee qof waliba uu halku ka soo gaadho iska garab taago waxaan iyagana la hadlayaa musharaxiinta u tartamaya golayaasha kala duwan marka hore waan u mahadnaqayaa sida wanaagsan ee ay intii ay sharaxnaayeen iyo ololayaashii aan wax dhibaato iyo wax xeerka gefa ama wax ka baxsan shuruucda aanay ugu kicin iyo mas-uuliyadda ay qaadeen runtii ee u muuqdeen oo annagoo aada uga mahayno commission ahaan u muuqdeen dad mudakara oo runtii hawshaynu ka soo gudubno markaynu ku eegno aanu leenahay haddii xafiisyada yimaadaanna insha Allah waxay noqon doonaan dee dad mudakaro waxayna tara waxse muhiima maanta in la dhaco iyo in la soo baxaaba waxay ku xidhan tahay in nabadgelyo la helo dhammaan musharaxiinta waxaan ka codsanaynaa inay mas-uuliyiin noqdaan inay askar noqdaan inay madaxda maanta hogaaminaysa doorashada noqdaan inay meel walba iyagu ilaaliyaan nabadgelyada oo u soo jeedaan ilaahay baa og cidda soo bixi doonta marka nabadgelyada oo la ilaaliyo ayuun baana lagu ogaanayaa cidda soo baxaysa waxaan kaloo u mahadnaqayaa jaamacadaha dalka iyo ardayda ay runtii noo soo xuleen ee hawshan fulinaysa waxaan aada iyo aada
ula dardaarmaya ardayda shaqadan qabanaysa waxaan leeyahay dhalinyaraad tihiin nasiib baa qarankiina idinku soo xulay inaad shaqadaa culus qabataan jaamacadihiinniba idin soo xulay magacii jaamacaddaad sidataan magacii jamhuuriyadda somaliland baad sidataan magacii mustaqbalkiina iyo dadnimadiina aad sidataan waxaanu leenahay dadkiina u shaqeeya firfircooni ugu shaqeeya ha daalina ha caajisina wakti dheer baa gelaysaan howl culus ba idinka horeysa u dulqaata cadaaladda iyo wixii aad ku dhaarateen ee aad ballan qaadeen iyo axdigaa gasheen dhammaantood inaad fulisaan ilaahay hortii baa laydinka sugayaa inaydaan dhinacna u dhaafin baa laydinka sugayaa inaad ummaddiina u shaqaysaan baa laydinla sugayaa inaad shuruucda iyo sharciga laydiin dhigay ee laydinku tababaray iyo xeerarka inoo yaale dalku leeyahay dhammaantoodaa ku dhaqantaa baa laydinka raba maanta somaliland waxay saaran tahay qalinkaaga garbahaaga iyo gacantaada iyo maskaxdaada iyo cadaaladdaada ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay cadaaladda idinku sugo idinkuna inaad qarankiina iyo dadkiina u dadaashaan waxaan halkan runtii kala dardaarmaya dhammaan shaqaalaha commissionka doorashooyinka qaranka gobolada degmooyinka xarunta dhexe meel ay joogaanba waxaan kula dardaarmayaa inagu mas-uuliyad baynu qaranka u haynaa mas-uuliyaddaa doorashooyinkaynu u haynaa maalinta aynu inagiiyo qaranku waajibaadkeenna aynu ka gudanaynaa waa maanta oo kale waa maalintaa doorashada maalinta shacabka iyo somaliland ina wada sugayso cadaaladeenna kartideenna kalsoonideenna dhammaan ayna sugaysaana waa maanta waxaan leeyahay dhammaantiin qof walowba waxaa loo baahan yahay inaad laba laabto inaad saddex laabto inaad afar laabto kartidaada inaad sida ugu qiimaha badan ee ugu qaayaha badan ugu mas-uuliyadda badan ugu magaranaysaa ixtiraamka badan ugu nidaamka badan ee sharciyada iyo xeerarka dalka ku qotonta inaad u howlgashaan oo u shaqaysaan inaad cadaalad ku shaqaysaan inaad ilaahay hortii waxaa ka ballan qaadeen ee ku dhaarateen waajibkaa if iyo aakhiraba waa laydin weydiinayaa haddaydan si saxa u qaban inaad siday tahay ee saxa u qabataan sidoo kale waxaan runtii mahad aan la ilaawin u celinayaa ilaahay ka sokow ciidamada qaranka saraakiishooda ciidamada somaliland oo dhan nooc kastay u yihiin madaxdooda saraakiishooda oo dhammaantood muddadaa lasoo dhaafayna u taagnaa ilaalinta iyo habsami u socodka iyo nabadgelyada diiwaangelintii iyo kaadh qaybintii maantana 10,000 oo askari in ka badani ay diyaar u tahay oo 5 casho haddeer lasoo dhaafay heegan ugu jirto 5 dambena insha allah ama 10 dambena heegan ugu jiri doonto sida ay doorashooyinka iyo goobaha ummaddu isugu imanayso nabadgelyadeeda iyo safkeeda iyo kalsoonideeda u ilaaliyaan shacabkana waxaan leenahay ha lala shaqeeyo ciidanka ha la ixtiraamo awaamiirtooda ha la qaato ha loo dhega nuglaado innagay inoo taagan yihiin innagay inoo shaqaynayaan innagay bacadka inoo taagan yihiin dhammaantiin waxaan idinka codsanaynaa walaalayaal maalintaa inaad ciidankiina u dhega nuglaataan ciidankiina idiin taagan qoraxda inaad u dhega nuglaataan oo maqashaan oo iyaga ayaa amniga ka mas-uula iyagaa garanaya sida wax idinku hagaagayaan inaad ku raacdaan oo waajibaadkooda ha gutaani aa u fududaysaan oo la shaqaysaan waxaan kaloo aada iyo aada ugu mahadnaqayaa runtii ganacsatada hadday tahay shirkadaha isgaadhsiinta kuwa ganacsiga kale ku jira kuwa gaadiidka oo runtii la-aantood aan waxba suuroobeen iyagana aada iyo aada baan ugu mahadnaqaya waxaan
si mug iyo miisaan leh ugu mahadnaqaya beesha caalamka ee runtii inala shaqaysa muruq iyo maal iyo caqli mid walba ina gelisa maantana somalilan isugu timi somalilan ayaa maanta beeshii caalamku joogtaa ixtiraam bay inaga mudan yihiin soo dhoweyn bay inaga mudan yihiin wax wanaagsan inay inaga arkaan bay inaga mudan yihiin dad ilbaxa oo wax lagu aamini karo oo waxay qabsanayaan wanaagsan yihiin oo nabadgelyadooda ilaaliya oo ka duwan kuwa had iyo jeer laynagu daro ama aynu isku magac ahaan jiray ka duwan inaynu caddaynaynu u baahanay inay markhaati ka noqdaan wax aan afrika lagu arag ayaynu maanta u baahannahay taasuna waxay ku xidhan tahay dhammaanteen inaynu hareeraha iska taagno oo aynu nabadgelyo ku qabsanno doorashadeena wax kasta oo doorashadu u baahnayd komishinka doorashooyinku qaranku uu diyaariyey goob waliba meesheedii bay caawa ooleysaa wax waliba insha allah waa inoo diyaar inta inoo hadhay waxa weeye shacabka oo u soo baxa oo codka ku rida iyo nabadgelyo inay inoogu dhammaato ciidanka amnigana lala shaqeeyo waxaan uga gudbayaa saxaafadda guud ahaanba waxaan leeyahay saxaafadda aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waa soo wada shaqaynay shaqo wanaagsan bay soo qabteen magac wanaagsan bay soo hooyeen si wanaagsan bay wax noola soo qabteen waxaan leeyahay maanta waa markii u dambeysay doorashada iyo tacabkii aynu soo gallay ee muddada 9 bilooda soo wadnay waxaan idinka codsanaynaa sawirkaa bixisaan ee somalilan ka bixisaan waa mid dhammaan hadduu wanaagsan yahayna saameynayo kor u qaadayo haddaanu mid somalilan istaahilo ahaynna dhammaan shacabka somalilan iyo ummadda somalilan dhibaato ku ah sidaa darteed waxaanu idinka codsanaynaa in maantana aad sidii wanaagsaneeda usoo shaqaysaan inaydaan sii daynin war aan rasmi ahayn oo aan meesha uu ka soo baxay iyo xaqiiqdiis aydaan haynin oo aan komishinka doorashooyinku idiin soo gudbin inaydaan marnaba sii daynin inaydaan mala awaal gelin oo idinku waxaad doontaan iyo natiijooyin hordhaca aydaan marnaba ku dhaqmin waanu idinka codsanaynaa waanaanu idinkala dardaarmaynaa waxa weeye wixii ama ummad iska horkeenaya ama been abuura ama aan sax ahayn waa dembi qaran hadday tahayna waa la isu raacaya waa lagu xisaabtamaya waxaan si gaara ula dardaarmaya mulkiilayaasha tviyada iyo jaraa'idka iyo websaytada iyo nooc kastay u tahay miidiyaha cidda iska leh si gaara baan ula dardaarmayaa waxaan leeyahay idinkaa mas-uuliyadda u dambeysa idinku urureysa idinkaa iska leh meheradda ummaddana u adeegta kana adeegata sidaa darteed inanka aad dirayso iyo inanta aad dirayso iyo warka ku soo gaarhaya iyo ka la sii daynayo waxa weeye mas-uuliyad taama oo adiga dushaada saaran marka laga soo gudbo ciddii soo qabatay ama soo duubtay haddii aan t v-gu sii dayn dee dembi kuma laha t v-ga ama meheradaasu dembi kuma leh laakiin haddaad sii dayso dee shuraakaa ku tihi weeye wixii annagoo aan rajaynayn in war xumi ka baxo tviyada haddana waynu isa sii xusuusanayna way isaga digayna dhalinyaradana waxaan leeyahay kamaradaha sidata ama tviyada u shaqeysa maanta oo kale mas-uuliyaddu way ka baxaysaa wax hal qof war u arko wax hal qof maskaxdiisa ka keeno waxa ama musharaxaasu ku dooday ama ciddaasu tidhi ama ciddaasu ka dacwoonaysa inaad sii dayso waxaanu leenahay talo weyn ka yeesha u gudbiya ciddii idiin idhidgaraynaysay mas-uuliyiintiina la xidhiidha mulkiilayaashana waxaanu ka codsanaynaa inay guddi abuuraan oo aan qof iyo laba lagu aaminin wararka soo gaarhaya xarunta in loo abuuro guddi mas-uuliyiina oo saxafiyiina oo runtii dhinac walba wax iska taagaya somalilan maanta waxaa jooga
konton dal dad ka badan kontonkaa dal ba waxa weeye waa markhaati warkeennay qaadayaan way geynayaan sida aynu u dhaqanno iyo sidaynu doorasho u qabsanno iyo nabadgelyadeenna iyo isjacaylkeenna iyo wanaaggeenna iyo wax isu ogolaashaheenna markay musharaxiinta timaado isu hanaynteenna dhammaan maanta waa la baranayaa miiskay saaran tahay waxaan kusoo gebagabeynayaa kula dardaarmayaa dhammaan shacabweynaha ciidamada qaranka xusbiyada qaranka xukuumadda golayaasha cid kasta mas-uuliyad kasta civil society-ga hay-adaha dalka jooga NGO-yada dhammaan waxaan kula dardaarmayaa guddoomiyaasha gobollada cid kastay noqotaba cid mas-uulah iyo shacabba dhammaan waxaynu ku dardaarmaynaa in doorashadaas loo gurmado loo wada kaco hareeraha la yska taago qofku si xora oo xalaala codkiisa u bixiyo una ogolaado muwaadanka kale ee walaalkii inuu si xora oo xalaala u bixiyo ciddii calaf kule unbaa ku soo baxaysa ninna xoog wax ku keeni maayo orodna waxba ku keeni mayno amuurtu inaynu ilaahay ku kalsoonaano oo ilaahay ku xidhanno amuuraheenna ayaa inagu waajiba dhammaantiin waxaanu idinka codsanaynaa in la isgarab taago komishinka doorashooyinka iyo qarannimada somalilan waxaa kelmadeyda u dambeysaa tahay muwaadan codee ciddaad dooneysana u codee nabadgelyana ku codee